xafladan ayaa ahayd mid lagu soo dhoweynayay ugaas cali ugaas nuure oo ah ugaaska beelaha hawiye ee dowlad deegaanka soomaalida ahna ugaaska beesha jidle xildhibaano ka tirsan baarlamaanka golaha shacabka soomaaliya xildhibaano ka socday dowlad goboleedka hirshabeelle siyaasiyiin odayaasha dhaqanka soomaalida ayaa ka qayb galay soo dhoweynta ugaas cali ugaas nuure ugu horreyn waxaa madasha ka hadlay ugaas cabdinaasir ugaas nuure gobasha maanta meeshaan taallo waa xaflad aan u dhignay ugaasyada nooga yimid kinilka shanaad oon ku sagootinayno oo noogu yeelnay odayaashii dhaqanka ee gobolka banaadir si aan u dardaaranno ayaga ayaantan way nala joogeen haddana waa sagootin waa ambabax si aan u dardaaranno aan isu aragno ayaan xafladan u dhignay doctor maxamed nuur gacal oo ku hadlayay magaca aqoon-yahanka soomaaliyeed iyo xildhibaanad maryam axmed haaruun oo ka tirsan baarlamaanka golaha shacabka ayaa dhankooda ka hadlay madasha lagu soo dhoweynayey ugaas cali ugaas nuure oo dhowaan ka yimid dhulka dowlad deegaanka soomaalida itoobiya waxaan u hambalyaynayaa una tahniyeynaynaa una ducaynaynaa ugaaska iyo wafdiga uu hogaaminayo ee noo yimiday waxaan leenahay dhulkii nabad ku gaara wakiil rasmiyaha naga tihiin waana matalaysiin waa idinka midnahay halganka iyo xurriyadda iyo ififaalaha halkaas ka muuqdana qaybaan ka nahay hadduu alla idmo waxaan ku leenahay ogaas soo dhawow gacno furan ku soo dhawow aniga si gooniyaad ii sii tahay gaar ahaan aabbay saaxiibkiisu ahaa bacdan maanta iyo maalin walbaba meel walba uu joogo inaan ku soo dhaweeyo ama aan kusii sagootiyo waxaan is leeyahay waa mudnaan weyn oo agtayda ka leeyahay imaam maxamed yuusuf imaam oo ku hadlayay magaca duubabka dhaqanka ayaa dhankiisa ka hadlay madasha lagu soo dhoweynayey ugaaska salaanka bacdi ugaas cali soo dhawaaw dadkaaga waa aragtaa inta iyo xagga adaaba naga og intan waa aragtaa say ku jecel yihiin marka waxaan ilaahay kaaga baryaynaa in ilaahay si dhaqsaa dalkaaga kuu geeya beesha aad joogtay intaanaad iskale xaggan aada iskale intan aada iskale ugu dambayntiina ugaas cali ugaas nuure oo ka hadlay madasha lagu soo dhoweynayey ayaa waxa uu ku dardaarmay iskuduubnida iyo midnimada shacabka soomaaliyeed iyo shacabka dowlad deegaanka soomaalida isagoona u duceeyey labada shacbi walaalayaal annagu muddaan idinla joognay runtii aad iyo aad ayaana loo soo dhoweeyey ilaa maalintaa nimid iyo maanta inta ka dhaxayso martiqaad iyo soo dhoweyn iyo marxabaysiin aad u fara badan ayaana loo sameeyey aad baan uga mahad celinayna arrintaa iyada walaalayaal markaa aad baad u mahadsantihiin khayr allah idin siiyo insha allah annagoo nabadda inaan kulanno oo aadna soo gaartaanna waan jecelnahay inaan idinku soo noqonnana aad baan uga sii jecelnahay marka insha allah waan xiriiri doonnaa waana wada shaqayn doonnaa dad badan oo aanan aqoonin yaan barannay intaan halka nimid wax badan oo caqli ah iyo cilmi ayaa noo kordhay marka aad baad umahadsantihiin annagana 100 milyan ee Itoobiyaanka ayaan ka mid doonay idin dhex joognaa waan idinku soo dhaweynaynaa markaad timaadaan insha allah cabdicasiis ibraahim axmed okey TV Universal magaalada muqdisho